عدي كون نسيه لقتها قعيدو عارفي يا وبادو تفتي عبيدو عتمنى جكيدو عيشوني وليدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومركلي برنامج كني أستان هرمر ونهالكن لدوغو براتين بوندلان تي في ستوديو مقالة ملبون. waxaa barnaamijka martinooga xasan yuusuf dhuux oo ah oday communitiga kaga jira safka hore marka ay timaado waxqabad wadatashi iyo waxa ku soo kordhinba. xasan waxa kale oo mashaariic badan ka wada Soomaaliya gaar ahaan Puntland haddaan hoos u aadana magaalada Bursaalax. waxaan rabaa marka xasan inaan weydiiyo sida uu ku bilowday mashruuca kan magaciisa la yiraahdo Read Horn of Africa. xasan adoo soo koobaya بل إيه تففتر مشروع عني سيدك بلودي. بسم الله الرحمن الرحيم. horta dadweynaha na daawanaya iyo qolyahan stuudiyada warka iga duubaya inta waa salaamintiin. intaas ka bacdi barkii burburkii dawladnimo si dheeraaday ayna muuqato in aan dawladnimo soo dhow aysan jirin ayaanu waxaan isku soo qaadnay dad badan oo deegaankaas ah in aanu wax u qabanno dadkii muddaanu arrintaas ka shaqaynaynay adigu ugu dambeyntii 2000 yaanu waxaanu ku guuleysanay in aanu iskuul 12 qol ah aanu ka dhisno magaalada Bursaalax. meeshaas dad badan ma deganin tuulo yar bay ahayd ammaankaanu ku dooranay meel ammaan ahayd oo dadkii isleenahay iyo maaragtay balaayadii ma kama soconin meel ammaan oo dad yaqaan degan bay ahaayeen. meeshii baanu 12 galaas aanu ka dhisnay markii aanu damcnay iskuulkii inaanu furno meeshii dadba ma joogo ilaa 50 qof 60 qof baa ka soo qayb galay. marka waxaanu sameynay 100 danyar ah ama agoon ah baanu soo ururinay meeshaanu jiifinay cuntaanu ugu sameynay galaasyadana saasay ku bilownay in ay maaragtay iskuulkii usaas ku bilowdo. tartiib markii ay socotay ardadii banaanka ka timid ardadii aanu jiif siinay waxaanu u dhisnay kulleejo gaar ah oo ay seexdaan. waxaanu u dhisnay meel ay cuntooda ku karsadaan loogu kariyo iyo meel ay ku cunaan oo iskuulkii waa ka saarnay oo banaankiisaanu ka dhignay. dadkii deegaanka joogay way soo bateen iskuulkii faa'iidadiisii baa la arkay. meeshay 50-60 qof ay ku imaan san walba 100 200 300 baa soo kordhaysa. markii aanu aragnay wixii inay soo kordhayaan dadkayagii meesha abaabulahayay waxaanu ku tashanay in aanu annaguna sii kordhino hawshayadii. 2003 masaajidyo iyo waxaanu ku darnay hadii Ilaahay ku ran yahay iyo ceel aanu maaragtay u dhisnay iyo baabuur iska roga ah iyo hadii Ilaahay ku ran yahay hawlahaasaanu ku darnay. ardadii deegaankii dadkii waa sii batay waa ardadii galaaskii iskuulkii waa buuxsamay 12aadkii waxaanu 2007kii aanu bilownay in aanu secondary dhisno. aad baanu ugu mashquulnay aad baana loogu faa'iiday halkaas. ardada maanta dhigataa dib baan idinka sheegi doonaa waa arday badan 3 dufcaana ka baxday ilaa hadda. waxaanu sameynay oo kale 2 ceel oo magaalada biyaha siiya maanta 1000 guri yaa biyo ku jiraan oo mashruuc biyo siiyay. dhowr iyo 10 barood oo dadku ay biyaha ka dhansadaan aan awoodin inay gashadaan waa sameynay. biyahaasi ma laga gadaa dadka mise waa biyo free ah? waa laga gadaa meesha batrool baa ku baxaya kharash baa ku baxaya wixii ka soo baxay ciidamo qaatay mashruuca qaata macallimiintaanu ku kabnaa iyo iskuulka. حسن مشروع سوى مشروع بلارن شغل بدن لعق بدن أيها كبعيسة دولدي بونتلان سجدن بيجي وهذا أي قدام بيصير دولة وقام عبد الولي محمد علي قاس معي تاجرها أما قعني كجست المشروع السعودي لا 2000 أرنتاس وأرن أن ربنا برنامج على كدياريو
dowladdan waaba cusub tahay oo weli haddeer wax maaragtay dhibana nooma geysan waxtar weynna nagama soo gaarin laakiin dowladihii hore qaar waxna taray iyo hay-adaba qaar waxna taray qaar inta ballan noo qaaday nooga baxay. muxuu ka kooban yahay inkastoo aad taabatay waxaan jeclaan lahay inaad ii faahfaahayso imsaad iskuul hoosa secondary ah iyo midkii dambe hadda aad ii sheegto aad ku kordhiseen oo ahaa inaad ka samayseen iskuul farsamo ah. dugsiga sare wuxuu ka kooban yahay 9 fasal, hal xafiis, hal bakhaar, hal library, 2 musqulood, rugta gabdhaha qol gaar ah baan u sameeyay oo 2 musqulood leh oo gabdhuhu ay ku nastaan. ardayda dhigata waa 215 56 ka mid ah waa gabdho. macallimiintu waa 8 hal ka mid ah gabar ah, hal darawal iyo hal nadiifiye. intaasaa dugsiga sare uu ka kooban yahay. waaxda dugsiga hoose waa 14 fasal, 2 xafiis, hal bakhaar, hal library. ardayda dhigata waa 1,037 468 ka mid ah waa gabdho. macallimiintu waa 19 2 ka mid ah gabdho ah, nadiifiye waa 3, musqulo waa 13, waardiyana waa 2. waaxda dugsiga quraanka waa 5 fasal iyo 3 suuli buu leeyahay oo gaar u ah. waaxda masjidka waa 1 masjid iyo 1 suuli iyo 2 qol oo imaamku seexdo. xogta waaxda agoonta qolalku waa 4 agoonto, 1 hool, 8 suuli, 30 sariirood, 27 arday. waaxda kolleejka waxaa dhigata 252 waa 7 qol oo waaweyn oo holal ah, suuliyaal 22 bay leeyihiin. hoolku waa mid weyn oo kale iyo 1 kushiin. waaxda isbitaalka Bursaalax waa hoolka ragga, hoolka dumarka, haambiyood, xafiiska xisaabaadka, laboratoryga, farmasiga, qolka gargaarka iyo emergency room, bakhaar iyo mental health oo meel ah. waaxda ceelasha ceelashu waxa weeye waa 2. tirada qolalku waa 5 qol baa ceel walba 3 midna 3 waliba midna 2 qol. shaqaaluhu waa 3, motoradu waa 2, hama biyood waa 4 midkiiba 2 hamood biyood buu leeyahay. waaxda gaadiidka 4 baabuur baa mashruuc leeyahay, 1 iska roga ah iyo 2 Toyota iyo 1 ambulance. waaxda farsamada waxaanu farsamadu waa iskuulka hadda aad ku rabteen inaad ku kordhisaan. iskuulka elementary ah baanu ka dhignaa, galabtii lagu dhigaa. waxaanu ka furnay barashada cilaanka oo gabdho 35 gabdhood baa 6 bilood ka qalin jabiyay aanu ku barnay, iyo barashada farsamada korontada oo 25 wiil baa ka soo baxay. sanadkan waxaanu ku kordhinaynaa harqaan. xasan mashruucan waa ballaaran yahay. macallimiintan tirada badan oo ilaa iyo heerka jaamacadeed u gudbay ma Soomaaliba mise dad ajnabiyiin ayaa wax ka dhiga mise waa isku dhex jiraan? ma waa Soomaali kulli waa jaamacada ka soo wada baxay oo ninka ugu yar baa master iyo maaragtay iyo bachelor wada haystaan. waana wada Soomaali. shaqaalaha meesha ka shaqeeya waa 51 markii la isku daro. ardada meesha dhigata markii la isku darana waa 1309. aadiyaad hadda maxaa gacanta lagu haya oo waqtiga kan socda? mashruuc waxa weeye waa mashruuca korontada. meeshii dhawaan markaan tagay waxaan arkay internet inaysan lahayn. korontada meesha hay-ad baa siisa 4 saacadood maalintii inaysan ku filayn baanu aragnay. hadda mashruuc baanu wadnaa feasibility study ah. waxaanu rabnaa 24 saac koronto ah magaalada inaan u sameeyno si ardada iyo iskuulkuba ay maaragtay uga faa'iideystaan waxna ugu sameeyaan. waxaanu kaloo soo wadnaa dugsi farsamo oo aanu rabno in aanu 2017 ugu dambeyn aanu dhammayno. dugsiga farsamada waa 2 stage. aakhirkiisa markuu ugu dambeeyo wuxuu tagi doonaa ilaa 16
qol yaa soo baxaya hool weyn oo maaragtay lagu shiro haddii la rabana tiyaatarka lagu sameeyo oo koncertada magaalada loogu dhigo ayuu leeyahay meeshaan idinka tusi doonaa haddii aan leedma hoolkaas iyo istijada leeyahay. safarkaagii xasan ugu dambeeyey oo hadda aan filayay in laga joogo muddo ka yar bil aad dhulkii ku tagtay, waa filayay ujeedada ugu weyn aad u tagtay inay ahayd inaad yani mashaariicda aad wadeen warbixin kooban aad ka soo hesho aan soo indhaynso. maxaad kusoo aragtay dhulkii? dhowr jeer baan tegey mashruuca oo meesha soo arkay. maanta maalin ay ka fiicnayd ma jirin. horumar buuxda yaa dhan walbaba ay ka sameeyeen. dhalinyaro yaryaroo mutacalimiin oo jamciyeenahaanu meeshii u dhiibnay, iyagaa hawshii wada. runtii yani wax lagu farxo oo yidadiilo igeliyey baan kusoo arkay. maasha allah. xasan, magaaladii ballaaratay, mashaariicdii badatay, ammaanka, nabadgelyada, booliska, kala dambeynta iyaa kacay. meesha waa Soomaaliya, kama baxsana Soomaaliya. yani nabadgelyadeedu waxa weeye waxay ku dhisan tahay waxa weeye dad isyaqaana soo wada koray oo wada deegaan ah baa yaa meesha degan. iyagaa is ilaa iyagaa is xaq bolis waa joogaa meesha. bolis waa jira. bolis waa joogaa. halka waxaan ognahay inaa mashaariic kale ka wado, bal waxaa iga warantaa jaamacadahan buugaagtaada ururinaysay sidii ay ku jirtay warbixintayda markii aan bilaabay barnaamijka. waxaan ka hadlay in waxyaalo badan halkaan aad ka qabatay communitiga dhexdiisa. waxaana ogahay 2014 halka kan in abaalmarinta ugu sareysa ee la siiyo citizenka oo bixiyo governorka Victoria inaad ku guuleysatay. inkastoo aan ogahay waxyaalaha aad qabatay, haddana ma ii koobi kartaa, ma ii sheegi kartaa sababta aad abaalmarintaa ku mutaysatay xasano? markii abaalmarin la bixiyo waxaa fiican sababta loo siiyey qofka in la weydiiyo cidda siisay. haddaad adigu taadid aniga saasaa la ii siiyey ama saasaa la ii siiyey waxay noqonaysaa nin iska sheekeeyey. waxyaabaha la igu qadariyey waxaa ka mid ahaa waa multicultural award, yani dadku wada noolaanshahooda. wada noolaanshahooda. marka waxaan isku dadaali jiray in aanu isfaham dhex dhigo dadka deegaanka aan nala deganahay iyo Soomaalida dhexdeeda. taasaa ugu muhiimsaneyd waxyaabihii yani laygu qadiyey. Mr. Hassan Yusuf. xasan, mashruucan yaa si joogtaa uga qayb qaata? runtii waxaa ka qayb qaata dadka deegaankaas ka yimid oo intooda xilkaska kulligood ma wada aha, intooda xilkaska oo jooga America iyo Canada, London, Sweden, Denmark, Holland iyo Norway iyo Australia iyo New Zealand, Kenya, Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta. intaas dad jooga oo xilkas ayaa ka qayb qaata mashruucan yani socodsiintiisa. kuwa kale maxaa ugu baaqaysaa oo doonaysaa qof kasta oo Soomaali ah oo horumarka jecel inuu ka qayb qaato horumarka deegaanka, ama kana ha ahaado ama mid kale ha ahaadee, inuu ka qayb qaato ugu baaqaya. ugu dambeyntii dardaarankaaggii dadkii aad la shaqaynaysay oo howlaha waday iyo guud ahaanba Soomaalida. 1962 yaan waxaan tegay magaalada Sofia, Bulgaria. hotel weyn baan fiidkii soo galay. nin madow baa halkaas gadaal fadhiya. waa ninku East African buu ogyahay. waa soo dhawaaday, waa u tagay. ma kula fariisan karaa ma irhaabu yiri. af Ingiriis baan kula hadlay. haabu yiri. Soomaali baa tahay haabu yiri. waa sheekaysan. Soomaaliya ka shalo kalaan imid. marka aan asna ii waramay ana aan waray foodheedka meesha markab kula jabay. buu wuxuu yiri in adeero Soomaalida haddii xorriyad qaadatay ma isbedeshay mise weli waa sidaadii. maxaad ku ogeyd baan ku iri. waxaan ku ogaa buu yiri dad aad moodo in la yiraahdo dhulkan dad kala leh ku siisama. ninka hadalkaas nin weligiis iskuul galay ma ahayn. waddanka 10 sano ka soo maqnaa markaas. يعني waxaa muuqata hadalkaas waxaan u hilmaami waayay waxaad moodaa dadka Soomaaliga ah inaysan wadankan lahayn iyagu wadan kale iyo u muuqda iyo deegaan kale iyo dal kale
ودنكيني كسر النقطة ودنكينينا وحقبتها ودنكي ددكينينا وإذنك يا دد أهه وحلقبته وحن أخبته أنت سأنك كلة الله سبحانه عاد كل نسيه لقتها قعيدو عارفي يا وبادو يفتكي عبيدو عتمنى جنكيدو